يضي حالك وما يستوى راح الوجود والحياة dhegtiya dhabanka isku kay dhigayay afkii baa suuqda galay miyaarad isku fiiri dilcisada saaftana amarsato oo madaxa bidaarta ka gilistimaha ka biibaan jireernimadaada oo ku adkeysan weysay saafta amarsatee dilcisada saaftana ma saliid raas oo bidaarta bixiso oo maxaa dhahay timasa kugu soo baxay balaahi fil darabadani sagaashanka leefkaanay saaran tahay habeenkii maalintii leefkaasay saaran tahay maslaxooy wixiina haddee baranki tahay idinkeenay taalaan anaka hilibkeen afka hanoo gelinin maslaxooy markaa ninka shukaansanaysidaaba la dhahaa walaalow cunugaasaan haystaa cunugaasaan caani igu gaday haddaa igu gadaan magaaladaasaan kale markii heshiiskiina maku jirin inuu caano kuu gado oo cunugaas caano kuu gado heshiiskiina maku jirin mase adaha baba'nina miyaa baba' dalaq ma iska diri waa maya ninka markaa shukaansanaysid waa inaad u sheegtaa xabaalahaaga iyo waxaad ku sugan tahay ani saas iyo saasaan ahay cid anaa ani saas u ahay cunugaasaa haystaa caanam igu gadee markii ma tiri haddaad tiri catoosh wuu kaa gardareya inuu cunugaas caanaha u gado waa ma dhihin maanu waa inaad dhahdaa abow cunugayga caanaha uu ka dhammaaday adag maxaan buu dhaha ana sariirtasaa ugu goosanaan waxaan ka goosan karo mafahant asoo jeebkiisa saas u maran oo ilbaabka degaa yaa maayna leefaa soo gashay sagaashanka ninka jareer buu ahaayo dimiis isankiis wixii u gadisan yihiin uu qabaaye inaa aday qoomiin dhan aad sas usoo firtaysa qaladay kugu tahay baraankiyaa hooyadiis loogu dhalay noqonaya qofka ani sisi dhahaaya asna ma dahano hooyadiisa baraankiyaa ku dhashee saas waa ani jawaabteeda taas waaye dadka aflagaadoonaya aflagaadada qaar dad islaamaa leeyahay inuu afkiina ka cishatiin waaba waxyaalaha qaar ninka horta hadduu soo hooyado oo asho raaligelin si fudud qaato ani raal ahaa heye hadda cid haysta mal guriyee waa tay karaa laakiin waxaas nacasnimo waa aniga fiir owlaadan leeyahay cunugayga maxaa leeyahay dhibkaa dhow ku soo baxo ani dhibkii ugu soo baxo qof lagala xisaabtamo hadduu biri wax ka maalin wax geysto qof la qabsan karo aa loo baahan yahay laana hadduu ani jawaabteeda waan siinayaa yaa kama xishoonaya asiba igama xishoonin hooyadiisa baraankiyaa looga ilmo dhalay asina baraankiyaa lagu dhalay hadduu baraanka asi ka dhigay isna baraankiyaa uu ku nool yahay sas leebaaba qof horta maxaa la dhahay nin maanta afkoo kaaga kusal siiyey oo biri kaaga oysiinaya maanta kaaga kusal siiyey oo biri kaaga oysiinaya sheekada tiktok oo ka arkay alla ma maleyneen alla inay xabadda u dhaceys ma maleyneen oo wiil dhahay sheekadaas oo camal aniga garteeda waa dhiibanaa asna gartiisoo dhiibanaa waalidan dhaxgalaa waxay la soo gooyan qaadanaani oo qasabna ay ku jirin oo xukunna isku jirin yacni wixii la soo gooyo oo xaqayga معابر حليمة السعدية البشرية أبابا أنا كل مي عد سوا أدس أبابا جبانيس كهرتاجنا إلا هذا البرمج السعودين سلام صدرون وهكذا صدرون صدرون صدقس الحمد لله الله سيدوا بارع لا صدقني ده fadlan noo saar subscribe ilaahay khayr ha ku siiyo wax degdeg aad ku farxday ilaahay ha ku siiyo ana warar degdeg oo hadda soo dhacayo isku rarana ayaan ka dabageynaya dhegtiya dhabanka isku kay dhigayay afkii baa suuqda galay waxa kale aan ku hayaa war yaab leh oo aan kaaga xaqiijinayo xadhiga catoosh jare warar yaablahoo kale ayaan kuu haya sidaad halkaa ku aragto waxa weeyaan shareer weyna oo kacay
oo waxa weeye malyuunmaanka ku dhegan sideen ognahay hore ayaan u baahinay maalmihii ay catooshariya isguursadeen waxa weeye malyuun waxa weeyaan iyo maslaxo runtii waxa aan u arkayay anigu inaanu gurigan sii raagi doonin waxaan arkayay dadka cadowga ah ee waxa weeye catooshara u lahaa waxaan arkayay meel fog baan wax ka arkayay in laga daba shaqayn doono reerkaas balse may ahayn inay baraha bulshada soo galaan taana horaan uga shawaabnay waxay ahayd maadaama ceelna u qodnayn cidana u maqnayn inay baraha bulshada ka shaqaysanayeen war kaloo degdegaan ku haya catoosh yare iyo maslaxo ma waxa weeye sheekadu shiliinbaa sheekadan maxaa ka jira warar yaablo xaqiiqo oo isdaba qulqulaya wajaaraha oo waxa weeye reer muqdisho ayaa dadaal dheer ugu jira siday isugu soo celin lahaayeen catoosh yare iyo maslaxo ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu reerkaasi dib isugu soo noqdo oo aanu burburin runtii hadduu reerkaasi burburo dad badan oo soomaaliyeed niyad xumo ayay ku noqonaysaa dadna way ku farxayaan sidaad halkaa ku aragto waxa weeyaan cabdinuur iyo sacdiya oo ah ciidamada sida gaarka u labisanay harimacad oo xalay toore ku aqalgalay magaalada muqdisho labadan lamaano oo ka mid ahaa ciidamada qalabka sidee harimacad ayaa muddo dheer ay ciidanka ka wada tirsanaayeen sheeko dheere dhex martay oo shacayl 2 sano soo shiitamayey ugu dambeyn xalay baa loo sacabtumay oo waxa weeye ay aqal galeen waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo reerkaa ka tirsan harimacad ee waxa weeye sida khaaska u labisan sidaad halkaa ku aragto waa fanaanadii caanka ahayd ee rasmi rayso u guurtay magaalada nairobi rasmi rayso nairobi u guurtay iyo odaygeedii oo sheegtay inay iyadoo hal ah ay ka tagtay nairobi balse ay ku soo noqotay iyadoo 3 qof maadaama ilaahay ilmana ugu deeqay iyo odaygeediya iyada ay leedahay maanta reer dhan oo guuraya ayaanu nahay dhalinyarada reer nairobi ee aadka sida khaaska u wanaagsan ee dadka soo dhaweeya ayaa halkaas ku soo dhaweeyey reerkaas oo waxa weeye hadda u guuray xaggaas wadaga arkaya waxaan leenahay ducada la dabagala sidaad halkaa ku aragto waxa weeyaan CK oo waxa weeye ku sugan Addis Ababa ayaa soo bandhigay muuqaaladaas aad arkayso walaalkeen CK oo aynan garanayn baryahanba meel ku sugan yahay Addis ayuu ku sugan yahay wadaga arka halkaas sida loogu soo dhaweeyey ee gabdhahii quruxleyda ahaa ee reer Addis ay ku soo dhaweeyeen sidoo kale halkaa waxaad ku aragtaa dhacdo murug badan waa la shirqooray waxa weeye mahad faracado ahaa waxa weeye reer adaado ayaa shirqool loo dhigay ka dhana oo lagu shirqooray waxa weeye cabad runtii waxay ahayd dhacdo murug badan walaalkeen oo ahaa ganacsade waxa weeye dadka meelahaas tuurtooda wax ku iibiya ee gobolada u kala goosha ayaa loo dhigay shirqool aan hore loo arag waxa diray saaxiibkii waxaana soo shirqoolay saaxiibkii runtii waxay ahayd dhacdo murug badan oo reer cabad waaq ay calanka hoos u fururiyeen wararka ayaa kale faraqayn doonaa waxaan ku leeyahay bilow ilaa dhamaad ila soco aan ku soconay warkeena maanta ugu weyn waxaan ku soo qaadan doonaa catoosh yare oo runtii waxa weeyaan leexa sida teleemaan culus iyo duufaana saa u dhax socda niyad shab ka weyn ma jirto muuqaal kastaad aragto catoosh yare baraha bulshada ku soo baahinayo murug aad u weyn baa ka muuqata haddaba waxaan hayaa warar sheegaya in catoosh yare la xidhay oo weliba la helay inkastoo aynaan arag meel catoosh yare lagu xidhay haddana waa muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyey oo aan qaar aan saliya raad lahayn catoosh yare ma xidhna gurigiisu iska dhex jooga cidina may xidhin catoosh yare maxaa lagu xidhay waa muuqaalo aan uga shawaabayey inay yihiin qaar been abuur ahaa oo laga faafiyey catoosh yare intaas haddaynu kaga soo noqonno haddaba waxaad aragtay muuqaal kasta uu catoosh yare baraha bulshada ku soo baahiyo runtii niyadashab weyn baa ka muuqda walaalkeen maslaxo oo ay dad sidaa uga soo daba shaqeeyeen oo la soo kululeeyey oo hataan waxa weeye shismigiisa saa wax uga sheegaysa iyo waxaan halkan aan lasoo marin karayn dad ayaa sheekadan moodaya sheeko shiliina ma gabadh baa ninkeeda sidan baraha bulshada ugu bahdili lahayd ma og tahay inay maalmahay isguursadeen ay ku heshiiyeen inay maslaxiyo catoosh yare aanay baraha bulshada muuqaal ay leeyihiin aanay ku soo duubin haddana si kastaba dhacday waa adigaa arkaya catoosh yare oo xataa waxa weye ciwaankiisi kala noqday waxa weeye maslaxo
ay maslaxa ku qornaan jirtay iyo maslaxo oo waxa weeyaan habeen qura ku heshay 100,000 oo qof oo waxa weeye saaxiibadood oo ku soo beeray ah waxaad aragtaa shareer weyn oo kacay oo aad uga xanaaqsan dadka xaasidiinta ah ee baraha bulshada waxa weeye sidaas ugu bahdilay iyo isku diray reerka quruxda badan ee waxa weeyaan soo dhalanayay waxay leeyihiin catoosh yare uu garaacay maslaxo wax ciddi muu gaarsan ciddi catoosh yare maslaxo ciddi muu gaarsan xataa waxa weeye hadalku mu oran kaliya waxay isku qabsadeen wiilka ay u keentay oo ay waxa weeye muran uu ku dhaxmaray dabeetana uu yiri iga kaxay wiilkan ma rabe taas ayaa meesha ay ka bilaabantay sheekadu taasna dad ayaa ka dambeeyay waxa weeye xataa xaqa catoosh yare waxa weeye ka soo kululeeyay laba lamaane ma israahayd bil gudahood xataa ma gaadho bal ka waran taas waa mid siyaasadaysan waxaan oran karnaa guurkii catoosh yare iyo maslaxo oo la siyaasadeeyay oo ay dad waaweyn iyo dad yaryarba ka qayb qaateen weliba qabyaalad ahaan loo dhaxgalay waxaad arkaysaa inay maslaxo hadda si toosa u sheegaysa inaanay waxa weeye aad arkaysa sidai u aflagaadaynayso balse ilaahay mahadiha ka gaadhee dad odayaal ah ayaa guntiga u xidhay oo dadaal geed dheer iyo geed gaabanba u fuuray siday isugu soo celin lahaayeen maslaxo iyo catoosh yare maanta muqdisho waxa ka socotay waxa weeye odayaal fara badan oo isu tegay oo xagga shareer weyne ka soo jeeda iyo xagga reerka maslaxo oo gacanta isku dhigay oo waxa weeye heshiis dhex maray oo waxa weeye la rabo hadda in si toosa gacanta la isugu saaro catoosh yare iyo maslaxo waxaanu ilaahay u weydiinaynaa inuu isku soo celiyo reerkaas waxa jira dad xaasidiina oo aad uga xumaa oo waxa weeye weliba qabiil ahaan waxa weeye iyo cunsuruniba ay ku jirto reerkaas aan doonin inay indhaisi saaraan dib u dambaysa ma waxaynu aragnay reer bil gudaheed isqabay oo haddana waxa weeye furniinkeedu uu halkaa durdaba ku dhammaado maalinkii baraha bulshada ay sidaa ugu baahinayeen ayaa dadka qaar waxay ballan ku qaadayeen inaanay sii wada shoogi doonin catoosh yare iyo maslaxo oo aanay diba u dambaysa wax weeye halkaa ku sii wada sugnaan doonin waxaad halkaa ku aragtaa maslaxo afkeeda ka sheegaysa waxa weeye haddii odayaasha ay og tahay dee micnaha marka laysu yimaado wixii loogu go-aamiyo khalad ama sax ha noqota oo aanu dee khasabna ku jirin oo waxa weeye waxay raallida ka tahaya balse odayaasheedu ay ugu taliyaana inay qaadan doonto reerkeedana ku dhaqan doonto balse intaas horta waynu ognahay oo dadka halkan waxaan uga sheegayaa in catoosh yare iyo maslaxo ay isku soo noqonayaan taas niyadda geliya dadka xaasidiinta ee rabay inay maslaxo iyo catoosh yare ay kala diraan iyagoo isu yimi waydan arki doontaan maalmaha foodka inugu soo haya sababtoo ah meel ay odayeer wada fadhiisteen afgarashaan aaniba kuma dhammaato waayo gabadh la dilay maaha gabadh la dakray maaha gabadhuu furay maaha afkiisa macaal furnin ma jiro furnin ma jiro ee waa xanaaqun baa tegay gabadh la furay baa sidaan u hadli lahay waxaan waa xanaaq way dunday haddaad maqan jirtay gabadh dunday oo gurigoodii qabatay wey inta aynaan muuqaaladeena soo gebagaben waxaan kaa codsanaya inaad caawiso walaasheen nadiiro yaroo ah walaal waxa weeye dhibana u ah waxa weeyaan runtii waa dhacdo murug badan walaashan waxay kaaga baahan tahay inaad caawiso halkaa kala xidhiir waxaad awoodana u dir runtii waxa weeyaan waxa ku dhacday dhacdo murug badan oo ma kici karto waxaad awoodda halkaa ugu dir nadiiro yar iyadaa toos kaaga qabanaysa waa bishii wanaagsanayd halkaad u dirto adigana ilaahay 1,000 buu kaaga dhigaya 100 haddaad u dirto 100,000 buu kaaga dhigaya xadhka kaa xidhxidhnaa oo kaa waxa weeye cusubsanaa oo isaga kaa marmarnaa ayaa kuu kala furfurmaya adiguna wax wanaagsan baad helaysaa ducaad shaqaysanaysa annaguna waan kuu soo ducaynayna ilaahay wax wanaagsan adigana ha ku siiyo ee walaasha nadiiro yar waxaad u awooddo isla garabta